بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد sida walaaluhu tilmaamayaan darsiga waxaa loo qoondeeyay inuu ku saabsanaado maxaa laga rabaa waalidka qurbaha jooga alaslu mar haddii waalid la sheegay waxaa laga rabaa waa inuu naftiisa ilaaliyo ehelkiiyo caruurtana u ilaaliyo meel kasta uu joogaba hadduu waddankii joogo iyo hadduu halkan joogaba laakiin waxaa si gaara loogu tilmaamay fii bilaadi lgurba sababta loo tilmaamayaa waxay tahay waxa adag shaqada halka taalla asalka ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا ورنت إيمانك لقاها أنت ربي قوت رميصنو وأنفسكم وأهليكم نارا نفتين يا أهل كينا بالنار كبد بادية وترقت ككوات innaga waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga ah taargetkiisa koowaad ama yoolka koowaada reerku waxay cunaan raadi iyo meeldeji iyo baabka inuu yahay ilaahayna wuxuu inoo tilmaamayaa shaqada koowaad ee muhiimadda koowaad mudani adduunka waxa dhib ka dhaco dhami waa maalmo waana kii xadiiska nebigu sheegayay si kasta ninkii u soo rafaaday haddii jannada mar la muquursiiyo oo la dhaha war weligaa dhib ma aragtay maye dhibima soo marin buu yidhaahdaa wax lagu ilaaba xageer jira kii dunida waxoogaaga soo helayna haddii naarta mar qura la muqursiyo la yidhaahdo war weligaa nimco ma aragtay maya yaa rabbi buu yidhaahdaa ma dhadhamin idan qofka mu'minkaa asal waxa ah aakhira u diyaargarowgeeda asal waxa ah halka kan inuu safar ku yahay markaad dhexda soo socoteen ka fakarteen war meelahan daarama ka dhisataan ama wax wanaagsan mise waxaad lahayd wallahi haddaad derbigaa seexatana waad ku gamaysaa haddaad berriun waxaad ka raacda hesho yani si aad u fakeraysa caqligaaga uu programsanaa waxay ahayd derbi kasta haddaad iska seexto berriun wax kaa sii qaada haddaad hesho waxaad rumaysnayd berri un wax kaa qaada haddaad hesho inay ku dhimaynin caawa halkaad sii seexataaba ama meesha aad u hoyataaba inaan mushkilad kugu hayn qofka mu'minka adduunku waa u sidaa halkuu ka seexdaaba wax weyn kuma aha meeshuu u xidhxidhan yahay hadduu nabad ku ogyahay saa daraaddeed ilaahay markuu waalidka la dardaarmay waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inta iimaanka laga helayow quu anfusakum wa ahliikum نارا وقودها الناس والحجارة نفتينا iyo ehelkiin iyo intaa dhasheenba waxaa ka ilaalisaan cadaab ama dab dhagaxa iyo bini aadamka lagu huriyo malaa'ig qalqallafsan ay joogto aad adag wixii alla farana aan khilaafaynin ee samaynaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka macruufka inuu naqaano wuxuu yidhi ina allaha saa'ilun kula raacin عما استرعاه أحفظ أم ضيع آخره حديث الصحيحين كالرواية دي سنة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه قف كستا آخره وحل ويديني وحي للراعيي ميو إلالي مسه وضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته إلى ينك اللي ويديه قرقيس يعني مسؤوليتك هو أكلها الصرية nin baa laga yaabaa in dowladna la raaciyey madaxweyne uu yahay mid baa laga yaabaa in wasaarad la raaciyey qayb ka mida dowladda mid baa laga yaabaa iskuul in la raaciyey mid baa laga yaabaa jaaliyad in la raaciyey mid baa laga yaabaa hal masaajid in la raaciyey qofba in mid baa laga yaabaa hal qabiil inuu suldaan ka yihi qofba in baa mas-uuliyaddiisu taagantay mid baa laga arkaa ka ugu dambeeya aan wax kale mas-uul ka ahayni da islaanta iyo dhowrka caruurta ah buu mas-uul ka yihi
idan qof waliba mas-uuliyad baa saaran aakhiro qof walba mas-uuliyaddiisa waa la weydiinayaa ayuu nebigu leeyahay axafida am dayac miyuu ilaaliyey mise wuu dayacay wax loo ilaaliyana waxa ugu horeeya maxay waxay aakhiro ku badbaadayaan haddaba su-aashu waxay tahay waalidka galbeedka jooga sidee buu arrintan u samayn karaa inagoo galbeedka og xidhiidhka labada waalid ka dhexeeya inaanu deganayn guryuhu inay qaar badan oo ka midi dunsan yihiin caruurtu inay sii yaacayso qaanuun iyo nidaam iyo system aan inoo cuntaminoo ahayn qaabkaynu u soo korriyo dhaqankeeni aan waafaqsanin inuu meesha yaallo ilaa iyo sagaashanaadkii waxaa la weydiinayaa tarbiyada caruurta ka waran waxaa laga yaabaa nadka haddaa gashaan intaasoo muxaadaro kala nooco tarbiya caruur aan ka warramayna inay jirto maxaa dariskan in lagu celceliyo keenay weli waa loo taagla'ayay dabeetana waxaa laga yaabaa 27 sannadood kadib baa haddana waxaa la leeyahay waxaad ka warantaa waalidka galbeedka jooga maxaa saaran su-aashu waxay tahay ayna alkhalalu wama alxal halkee baa wax iska qabsan laayiin halka meesha wax ka qaldan tahay waa halkee sideese loo saxayaa in badan waxaanu ku wareeray caruurta iyo sida loo baahan yahay loola dhaqmayo sida kan iyo wax la sixi waaye hadda waxaan rumaystay inaanay ahayn caruurta kuwa wax ka qaldan yihiin inay tahay waalidka kuwa wax ka qaldan yihiin faaqidu shay laa yucطii nin marani wax ma bixiyo meesha wax ka qaldan yihiin caruurta markaa maaha saddex qodob halkan way yaalina u baahan inaynu saxna haddaynu waalidiinna ummiya diiniya diinteeniyo aynu ummi ka nahay qof aad rabto inuu mutadayin noqdo aad wuxuu sheegay adigina aad waxba ma ka garanaynin waalidkiya maxaa xalaala maxaa xaaraana maxaa waajiba maxaan waajibahay maxaa fardu cayna maxaa fardu cayna aan garanaynin ummiya diineed baa jirta aqoon darro diineed oo dadka waaweyn haysata ka labaada jira waxa weeyaan ummiya cilmiya fi fanni tarbiya aqoon darro xirfadda barbaarinta waa xirfad la barto caruurta wax iska kora un maaha beerta ninka ka shaqaynaya muxuu sameeyaa nin geel la joogay miyaa la yidhahdaa beer mise waxaa la baraa sida beerta loo beero waa la calroga kan baa la sameeyaa siidhiskaa laga guraa waa la abqaalaa biyaha waktigaasaa la siiyaa cadceedaa loo dhigaa kan baa la sameeyaa waa la engeji waa la isku tallaa ninka beeralayda waa cilmi dhab u wadaa idan caruurta sida loo barbaariyaa cunno siin ma aha ee waa fanni waa xirfad xirfaddaasina aqoonteedii ma taalo idan waxaa haystaa diinta aqoonteedii ma hayno xirfadda barbaarintana aqoonteedii ma hayno xaadina ijtimaaciya khatiirana waynagu wareegsantay bii'o ama deegaan khatara oo aan ahayn kaynu la dhaqanay oo marka aad joogto deegaankaagii rasmiga ahaa ee diinta ay dadku wada haysteen ee dhaqanku islaami ahaa xataa adigu haddaanad wax garanaynin cid kaloo wax garanayso ku saacidaa joogtay xirfadda hadday tahay ayeeyooyin iyo eedooyin iyo awowyaal iyo aabbayaal iyo yay waxba qorin laakiin can ariiqi tajriba bay wax badan ku barteen cilmiga badhna dee qoraal baa lagu soo dhigtaa badhna tajriba lagu qaataa tajribada iminka geerashadeennii soomaaliya gabadhida lagu samayn jiray dadka jooga mid iskuul galay miyuu ku jiraa laakiin gerash buu galo can ariiqi tajriba sidii loo lahaa baaradaa keen iyo kan fur iyo kan samee ayuu marka dambe khabiir noqday tajribuu ku bartay mid iskuul u galay oo loo soo dhigdhigay oo dee farsamada soo bartayna wuu jiraa aqoon oo dhammi waa sidaa wax tajribo lagu bartaa kuugteennii soomaaliya wax karinaysay nin wax loo dhigay miyaa jira mise nin waliba saasuma ku soo bartay halkan jaamacad baa looga baxaa high school baa laga baxaa marka waxaan u dan leeyahay waddankeennii xataa adigu iskaba aqoon darrowe
iskuulka macalinka joogaa muslim ahaa suuqa dadka joogaa muslim ahaa masaajidka muslim ahaa dhaqanka oo dhan baa dhaqan islaam ahaa waxoogaa haynaga qalqaldanaadaan laakiin aragtida guud ee diineed dee way taallay marka haddaanaad adigu wax garanaynin waxa kugu filan inaad tidhahdo inanka malcamada qabo iskuulkaa soo dhigo adiguna aad beriskaaga ku mashquusho inaad soo saarto markaa ilmahan uu iska korayay haddaba halkan xaadinadu meesha waxay noo barbaarinaysaa waa khubaro dhanka kala taagan maaha dad aqoon daran waa dad la baray farsamada ilmaha sida loola dhaqmo fannu tarbiya khabiir buu ku yihi laakiin mawaadda uu ku shubayo ayaa ah mawaad ka gedisan mawaadaynu haysanay haddaba qadiyadu markay sidaa tahay aan ka warramayno carruurta hala tarbiya carruurta la war innagaa waxay naga qaldayneen innagu aan dib isugu noqon maaha carruurta wax ka qaldayin carruurtii baa luntay carruurtii baa iskuuladii carruurtii baa daragii bisay carruurta maaha wax ka qaldayin waxa koowaad ee wax ka qaldayin waa innagu saddexdan shay waa inaynu si uunu saxnaa innagu waa inaynu ka baxnaa ummiyada diineed aqoon darrada diineed waa inaynu ka baxnaa oo calal aqal diinteennu waxay ku bilaabantay masalat alcilm iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدح جير بأرجع اقرأ كسر نقطة دور جير كلمة العلم كسر نقطة يعني دين تنا أساس كده وأقوم إلهي سبحانه وتعالى دين تنبه أقوم تسوي مضنتي وحي تلمامسة ما لا نقوم والله احترامين بقى وحنا كسودة مكة وانا aqooniyo diini baabka laba haynin loogama bilaabin dadka akhlaaqdiina fiicnaysiya kansa ee waxa looga bilaabay aqoonta iyo qiimaha ku fadhido nabiguna wuxuu ina leeyahay alayhi salaatu wasalaam talabu alilmi fariidatun ala kulli muslim xadiiska ibn maajah cilmiga barashadiisu qof kasta oo muslima hadda u fiirso talabu alilm inaad cilmi dalabtaa waa fariida baa la yidhi فريضة صوم نقانو صلاة صفر الماء نبي محمد وحده علم هو فرل قف كستو مسلم أبوكي علم هو الله بقيبه قيبي وإن ده حد قاعده مجتهد نقطه مسائل كجوابته كتب تدكته قيبنا وإنت تكون ولا الله هذوين الصلاة ضاد الصحنتو عقيدة ضاد الصحنتو صوم كابو الصحمو يعني فرض عين وحلا يده جرا فرض عين هو ووحى قف نقف uga wakiil noqonayn qof walba sidiisa looga rabo adaa laga rabaa xalaashaada iyo xaaraantaada inaad kala taqaano waayo xaaraanta cunin baa lagu yidhi dawa inaad garataa marka maxaa xaaraana iyo maxaa xalaala adaa laga rabaa salaad iyo soon iyo zako waa inaad garataa maxay ku asaxdaa maxay ku burtaa adaa laga rabaa caqiidadaadu inaad saxabto iimaankaaga waa inaad garato waxaas waa fardu cayn فرض عين مركن لنا وامحي وعلم بلشيد ولا ربط ضد أرنمي إنه يقانه قف كست أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يروي إنه ينتقرته ولذلك النبي يقول حلي حديث صحيح يا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين منك إلى هاي خير بالله دور الدين تقرأ سيها هذا الدين تهذا قرن ويدو كوي خير كلا لا دوري متيت أيوه بدنت وحلنا مركا والدك محا صارن قلبيتك جوغا وحن ليا اولا وحا صارن علم نفسك الاساسيات الدينيه انت رحت علمها كهدل ادغو دينتا اساس كده برو عقيده برو maxaa laga rabaa inaad rumayso baro maxaa xalaala baro maxaa xaaraana baro cibaadaadkaaga saxo adigu qof muslima noqo marka hore waajibkaagii cayniga ahaa adigu ogow waa qof walba ma inuu wax qoraabaa shardi maaha cilmi dhigood baad ku qaadan kartaa waad dhegaysan kartaa inaad qalin iyo bug qaadataa shardi maaha laakiin waxaa lagaa rabaa asaasiyaadkii wixii lagama maarmaanka ahaa ee diinad inuu qof wal oo muslimaba garanayo shayga labaad tilmaamaya waxa weeyaan wixii aad baratay tusaale ku noqo kun namuudaja
aba sigaarku wuxuu yahay iska daaya aniguna budh baan ka siinaya macquul maaha khamrigu wuxuu yahay khamriga ha baran aniguna waan cabayaa suuqa ha gelin aabbo aniguna suuqaan gelayaa inantaad dhashay suuqa aabba ha gelin aniguna odaygiina suuqaan ku jira maaha wax caqliga toosanba ma gasho caqliga toosan waxa gelaya waa maxay waa inaad adigu tusaale ugu noqotaa gurigan ilmuhu waa inuu isaga diinta ka bartaa say u dhaqmayaan aqoonta wax badan baa jiro aan lagu gudbinin hadal kuwa leadership ka warramaa waxay yidhaahdaan your deeds afcaashaadu bay yidhaahdaan waa inay ka cod dheeraataa warkaaga waa inuu ka cod dheeriyey maxay dhaqankaaga waktiga waxaan filayaa inuu kooban yahay marka waan soo koobaya masalada saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan fannu tarbiya barta xirfadda caruur korinta waa xirfad qof aan darawo lahayn hadduu gaadhi kaxeeyo maxaa ka soo baxaya nimaan darawo lahayn hadduu gaadhi fuulo adna waad isdili oo dhib baa ku soo gaadhi dadka kale waad dhibi hantida waad burburin waxaasaa ka soo baxaya waxaa lamida nimaan waxba garanayni markuu idhahay ilmaan korinaya adna khaataad joogsan saad u leedahay maxaa waxaan u samayn weydeen maxaa kan loo samayn waaye waad xeeqi iyaguna madax xanuun bay kaa qaadi doonaan oo intaad maqan tahay bay nafisi oo markaad guriga ka tagtaa bay odhan doonaan waar odayga qaylinaya waa inaga maqan yahay helada inoo tuma adiga iyo iyaga iyo dhammaantii waa isku wada dhib qabaysaan masaajidkii madrasaday tegayeen iskuulkii qabanayeen waa la isla wadax maray waa nimaan darawa lahayn oo gaadhi wada axad culamaa tarbiya muslimiinta ka mid ahbaa wuxuu leeyahay anigu waxaan odhan lahaa buu yihi ruksa qiyaadati lwaalideyn inuu qofku qaato mooyaane yaan guur la ogolaanin noloshii way isbedeshay buu leeyahay maaha noloshii berigii hore ee fududayd ee baadiyaha la iska joogay inanku ayeydii iyo eedadii iyo awowgii iyo reeraha dhameeyey carruurta la korinayeen maaha buu leeyahay waa laba dhalinyaro cidla isula baxaya waan cid dambe oo ka daba tegaysaa jirina guri cidlaa degan waxay dhalaan markaa inay korin karaan waxa ka horeysa buu leeyahay inaynu idhaahno ma guursan karo qofkaan liisanka soo qaadan carruur korinta waxaa jira wadamada muslimiinta wadano ka mid ah ayaa furitaankii baa batay waa la isguursanaya ciyaalkii markiiba waaba la kala tegayaa 6 biloodba gurigu ma dhisna warsaani si maaha bay yidhaahdeen dadkan uu isdhadhaminaya kala tegayaaye xaggee wax ka qaldan yihiin dowladdu waxay qaadatay in la furo koorso bil ah oo shahaado qofka la siiyaa guriga sida loo maamulo ninkuna sida nin loo noqdo la barayaa gabadhana sida guri gabadh looga noqdo ayaa la barayaa sharti baa ku xidhan qura dowladdu waxay bixisaa caawimada guurka qofkii guursada waxaa laga bixinayaa maxaa la yidhaahdaa kuraasida iyo waxaan u dhiganayaa lacag bay dowladdu siinaysaa dowladdu waxay markaa soo rogtay caawimada guurka la siin maayo qofkii aan shahaadadaa sidan cidna lama qasbayo laakiin haddaad ka rabto dowladdu inay caawimadii ku siiso waa inaad la timaadaa koorska inaad soo qaadatay dabeetana dee laba dhalinyaro kastoo isguursanaya markay rabaan inay guurkii sameeyaan xogaagii dowladda soo heli maayeen waxay noqotay intay tagaan inay soo qataan koorska wakti yarba furitaankiiba uu hoos u dhacay bay leeyihin noloshii oo dham isbedeshay waxaan uga dan leeyahay markaa farsamadu waxa lagu gurayaa ha kuu dambeeyaan maalan kuugnimadu waa farsamo soo maaha kuugu waa farsamo la barto laakiin wuxuu karinayaa inay xalaal tahay iyo inay xaaraan tahay waa masalo kale kuuga xariifa hadduu ka helo doofaar iyo wax intiisuu ka walwalaaqaaba wax macaan oo dhandhamaya iyadoo kuu dhiibi karaa soo maaha waanu isku walwalaaqi karaa iyadoo hiliboo macaanna waa kuu dhiibi karaa ninkani waa farsamo yaqaan tarbiyada fannu tarbiya waa xirfadaasoo kale xirfadda waxa lagu gurayo muctaqadka la rumaysay waa gaar waxa laga yaabaa manhaga gabadha joogta ama macalinka dugsiga hoose jooga ama wax dhigaya xirfaddan buu yaqaanaa laakiin wuxuu ku gurayo ayaa ku doofaarka karinaya adigu haddaad xirfadda baratana
waxaad ku guraysaa noqonaya maxay wax halaala wax fiican idan waa farsamo farsamadaasi waxaan leeyahay alwaalideyn jooga galbeedku farsamada caruur korinta waa inay bartaan intaa kadib aynu waxaan leenahay carruurta maxay inooga baahanta 7 sannadood ugu horeeya very crucial ah ya aad u muhiima oo u baahan in si fiican looga fakaro ilmaha ka ugu horeeya ugu khatarsan waayo kuwa kale isaga inta badan ay ku daydaan tababaraya waxaynu u baahanay markaa inagu markaynu imika galbeedka joogno aqligeena jooga wali wadankii qolofteenuna waxay joogtaa maxay halkan maxaan uga dan leeyahay keena dadaala wuxuu odhanayaa ilmihii madrasada ku soo daray sabti kasta iyo axad kasta waan kaxeeyayo masaajidka geeyaa gartay masaajidka maxaa lagu qabtaa quraanka loo dhigaa okay ilmuhu haddii faataxada iyo birabbinaas iyo ayad kursiga iyo jisc ma la qaybsiyo miyuu wanaagsanaanaya waxaanu garanayn hadduu qaybo waa culays unaad saartay ilan wax kale looma sheegin waxaa laga yaabaa madrasadeenu inay tahay adna waxaad ku dadaalaysaa ilmuhu halkuu jisku marayaa waa ilmahaaga quraanka wuu dareeriya tabaarak buu dhaafay halka buu dhaafay haddii kalena waa qolada camo ku noqnoqotay aan dhaafin soo duuduba ama camaha kuu barto ama ha kuu soo qaybe bulshadan intay ka taraysaa markaa quraan la qaybaa waddankeennii markaynu joognay dee dhul muslimiinu joognay quraanka in la qaybaa tacliintay furi jirtay wax barashaday bari jirtay qoraalku ku baran jiray fartu ku baran jiray kanbu ku baran jiray laakiin dee quraanku qaybaya gaale kalema hortegaynin waxaan leenahay mas-uuliyadda caruurta inaga saarani maaha inaynu quraan xafadsiino quraanka xifdigiisu waajib maaha waxa waajiba inta lagu tukado inta kale waa sunne waa min asunna way fiican tahay inaad ilaahay kitaabkiisa wax badan ka garanayso waa wax soomaalida lagu ammaanay inay yihiin dad quraanka xifdisan laakiin asalkii ma haynuu soconay asalkaynuu soconnaa waa maxay waa asal awal iskuulka iyo suuqa iyo madaaristeena iyo dadka iyo waxaas ay dhigi jireen adnaanad ogeyn waa asala qofka sidee muslim looga dhigaya qofkan inuu quraan xifdiyo miya kula tahay ku islaamnimadiisu ku joogaysaa quraanka ma garanayo wax ku qoranna ma fahmayo xifdigu soo xifdiyena kuma joogayo sida awgeed mas-uuliyadda waalidka saarana ugu horeysa waa maxay ilmahan inuu rabbigii baro ilaahay jeclaysiiyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jeclaysiiyo qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa maalan nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim luqmaan xikmad baa ilaahay ku sheegay suurad qur-aanka ka midana magaciisa la yidhaahdaa luqmaan qisada laynooga sheegeeyay oo dhammaynta badan waxay ku saabsan tahay isaga iyo inankiisa xidhiidhkii dhex maray ilma uu dhalay luqmaan wasiyadiisii walaqad aataynaa luqmaan alxikma ilaahay baa yidhi xikmad baanu siinay bal hadda xikmaddii la siiyey inta innaga laynooga sheegay aan aragno waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunay laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim waxaad xusuustaan baa ilaahay yidhi luqmaan markuu ilmihiisa waaninayey ee uu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim ilmahaygiiow ilaahay waxba ha ku lamaanin ha gaaloobi shirkigu waa dulmi weyn waxay culammadu yidhahdaan nastanbit min haada awla alashyaa u baahan inaynu ilmaheenna barnayno inay towxiidka baro ilaahay iyo jiritaankiisa nebi maxamed iyo nebinimadiisa qur-aanka iyo saxnimadiisa aakhiro iyo in dadka la soo saarayo qadaaga iyo qadarta malaa'igta waxa waa in loo sharxaa waayo xagga kale waxaa wax diidan baa loo dhigaa iskuulkan aad subax kasta geynayso gaalku waxaa ka horjeeda u dhigaa macallinkan ilmahan yar ee miskiinka intaad qaadaad u geynayso wuxuu rumaysay inaan ilaahba jirin ninka rumaysan inaan ilaahba jirin ilmahaga muxuu sheegaya ma ilaah baa jiruu soo baraya wuxuu rumaysan yahay ninkan aynu kula kallahayna carruurta nebi maxamed ba inaanu nebi ahayn inuu beenaala yihi calayhi salaatu wasalaam
waxay isweydiinta le markaa waxay tahay ilmuhu inay diinta islaamigu sax tahay xaguu ka baranaya malcamadiina qur-aan baa loogu akhriyaa halkana gaal baa jooga waxaan soo akhrinaya adna waxaad rabtaa ilmo muslimo fiican inuu noqdo yaa u sheegay idan lababa waan u baahanay inaad bedeshaan kow idinku inaad wax sheegtaan oo asaasiyaadka diintiina garanaysaa oo nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa min mawluudin ilaa wayuladu cala alfitra mid la dhalay ma jiro ilaa iyo fitrada lagu dhalaa aabbayaashii ayaama yuhuudi ka dhiga ama majuusi ka dhiga ama kan ka dhiga idan aabbayaasheennu iyo hooyooyinku waa inay noqdaan ilmahan kuwa kow caqiidada baraya maxaa laga rabaa madaaristeen iyo malcaamadaheenuna waa inaynu namadkii hore ka bedelaayo inay dadkan tawxiidka baraan waa inay duruusta la dhigaya ka mid tahay shayga labaad ee ilmaha la baraa waxa weeyaan cibaadaadkiisa soonkii salaadii sadaqadii iyo waxbixintii iyo zakawaadkii arkaanulislaamkii arkaanuliimaan markaad u dhigtay arkaanulislaamna waa in loo dhigaa ilaahay luqmaan markuu inooga warramayo wuxuu yidhi yaa bunaya aqim الصalaa yaa bunay aqim الصalaa inankaygiiyow salaada oog wa'mur bilmacruufi wanha can ilmunkar واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ilmaha yaa طahaarada baraya siduu tukadiya salaada yaa u dhigaya waxay ku asaxdiya waxay ku burtay yaa u dhigaya soonka yaa u dhigaya waxay u badan tahay malcamadeena in qur-aan uun dee waqti kaleba u heli maayo macallinku ilan 2 saacadood buu la joogaa 40 caruurina waa ag fadhidaa 2 saacadoodna waa intuu kan ka dhegaysanayo warbalad u akhri 2 saacadood iyo 30 caruura haddaad isu qaybiso waa imisa qofkiiba waxaa laga yaabaa inuu 3 mirin 4 mirin helo ilan qof walba waxa la rabaa in wax laga dhegaysto wax laga akhriyo bal adigu 30 arday iyo 2 saacadood waa imisa 120 minute 30 u qaybi waa 4 minute macnaheedu waxa weeyaan ardaygan aad macallinka u geysay 4 minute buu xaq ugu leeyahay 4 minutes buu xaq ugu leeyahay de markaan 30 inan la soo hor fadhiisiyo ee la yiraahdo quraanka ka dhigayso aan yiraahdo adigu akhri faatixadii mid waliba 4 daqiiqo buu leeyahay haddii kale barbaaran quraanka ba maanta ka dhigaysanin haddii aan rabo 30 kaaba inaan waxay soo akhriyeen dhagaysto qof walba 4 daqiiqo quraan u helaya ma 4 daqiiqad u malaynaysa inuu diin ku soo baranayo ما 4 دقيقة كلها إنه إنه جالس كي علينا مركا ما 4 دقيقة كلها إنه نقم كوهينيس أجينا عرورتي أضيني عرورتي بحماتي عرورتي بعينك ورعرور إنه ربنا ويجي سداد منت أفر تويج بهدات كيمتو وافر ميلاده مسداد من بشهر نلا بيا صدم دقيقة المها ميل جيسي وكيد دالي سبتي أحد كستسي ودي لبيا صدم دقيقة المها سحقوا هلاي هو حلو شيء علينا مركا ilmuhu wuxuu u baahan yahay inaynu salaadiisa baro waxa saddexaad ee uu sheegay Luqmaan al-Hakiim waa akhlaaqiyadka iyo dadka soo la dhaqmaya akaaga kor ha u qaadin in aan kala aswaat ila sawt akhlaaqiyadku kala waa idan saddex shay oo asaasiya buu ka warramay mid waxa weeyaan aqeedada midna waxa weeyaan cibaadaadka midna waxa weeyaan maxay akhlaaqiyadka guud iyo bini'aadamka sida loola dhaqmo quraanku Luqmaan al-Hakiim saddexda shay buu inooga warramay inuu baray haddaba waxaan leenahay waalidka waxa saaran ee ugu muhiimsan waa ilmahan diintan sidoo ugu rabayn lahaa ee uu tusaale ugu noqon lahaa ee uu dhigi lahaa ee uu sharxi lahaa waxa inta kadib waxaan leenahay waxa kale oo saaran markaa inuu wax baro tacliintan caadiga iyo si wuxuu ku xoogsan lahaa ama mustaqbalkiisa wuxuu baran lahaa inuu baro waayo islaamku cilmiga waa soo dhaweynaya kama horjeedo inta kadib waxaanu leenahay waxa saaran waalidka inuu beeliyo taas Soomaalidu way taqaanaa wax sheegi weynaya in bariiska loo soo xoojiyo inagu markaynu wadankii joognay waalidiinta ugu badan shaqada ugu badan ay qaban jireen waxa odayguna waxa la cunayaa inuu soo shaqeeyo islaantuna inay kariso
una maydho dharka iyo iyana intii guriga inay samayso waxaynu wadnoo dhamme qolofta ay ahayd qofka wuxuu cunayo wuxuu wado sidii loogu wado intaasaa odag iyo salaad shaqadoodu ahayd inta kale bulshada aynoo qaban jirtay ilan dad muslim aynu la dhaqanayna معلم قرآن سكول مسلمة معلم مسلمة مساجد مسلمة سوق مسلمة ضد مسلمين انت كلام بالشدة ينوق بنشرتي لكن أنا أقول مركز إنه ودن كي يشوفنا وحاول يقولنا إنه كله لا يلا أنا قاس عرورتي سووا وحوك سدا ونفي عن سلامت أنا لا يلا وكأدك توا قبض قاريو قرقة دونه والنظيف في المهد أنا مدو في لي مدو سكالة تونا يركي ما يصير مرجع شودان رجعني مدى إنه أنت سهل إنه كل ما أنت هلك كم شغال ساعة هذا إنه أنت ألس يقول ربنا إنه دل كان ضد أنت إنه كوكر صرنا أنت سمينه أنت سهل كم حبك تريمش قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف إن وحلصية وهي نسكوض الرميسين إنه يضر دارا بدن وباهنا لنا علمه بهي تدريبكم هي تعليمكم وكلا النوع قف كاين لا تبرين واحد ين علم الله شيء وكلا النوع علم كستو أدبرته فقد شغل بلا بسؤال وتبريه سيكونس كده يسا وحلوق بتاع لغو بريه inaad macluumaadka caqliga ku haysay inaad garan karanaysaa waa kala nooc مثلا inaan ku idhaahdo bastaad rabtaa inaad kariso liter biyaa dabka saar intaasoo bastaa ku dar intaasoo saliida ku dar intaasoo milxa ku dar intaa markay karto sidaa yeel tamaandhada qaado waxaa gogo waxaa haddaan waraaq kugu qoro ba theory maalmaha hore oo dhan maraad milixda ka ilowdo iyo maraad saliidda ku badisay iyo way isku walaaqmaysaa una hagaagmayso laakiin haddaan ku tababaro isla kaasoo taa ku idhaa googo basashan kan googo intaan isku dar shiil markay baashaasi burburdlaysa caynkaa noqoto sidaa ka dhe waa training ma ku siinaya marka dambe waxaad noqonaysaa maxay kug farsamo yaqaan oo fiican ilmuhu waa la mid inta badan dadka su-aala yaqaaniin baan tusaale ku siiya ilmaheenna markaynu xafaayadda baashan yare هذا يسحر ذا واحد المركز ربنا الكدينا وحين صبينا ما وعدنا أنا هوريا مش نقول بالله يرى لقوا ما كاتشوا أشاهد الغافرة هل كاسة تجلس أو مسخشي كسوك هذه المسجد واحد مكبر أنا يا ما قلت حين صبينا كل قدام بهيج اللي قليه فايد على غفرة تبتنا خير قدام بهيج ساعة دي بمربى تونشي بيدمان وحان عرفت الله دقيقة نصادقنا كاذي وقصبنا كاذي ما هي سوينا مرة ويا مرة وكو قصبنا مدة نكو وضنا مرمر بوينا قلب حسدا قولي وكو كاتشا إسلام تامس مسحدا يضو هبارتا مساما ما قيسو والله مسحا سيدا الله وضو آخر كوحو قرطاه meel guri la yiraahdo lagu kaajinayna inay jirto meel gaar ah lagu soo kaajinayna inay jirto laakiin markuu baranayo timetable-ka ka qaldaba wuu iska joogay markii kaadadu ka soo daadanayso hooyo kaada haysa la carro meeshige wuu sii kaajayntaan wali training-kii buu ku jiraa wuu gartay meesha lagu kaajinay meel kala tahay laakiin waxaan u haysanin wali baasho intaanay halkan soo ka imanin in meesha la sii tago markay daadanayso qaylinaya markaasuu maalinkaaga kaas muddaa la wadaa aakhirka waynu ka nasanaa soo maaha waxaa laga yaabaa 10 casho 2 week inay qaadato trainingkaasi marka aynu trainingka ka saarno kadib wuxuu noqdaa nin reerka ka mid ama gabadh reerka ka mid oo maxay taqaana halka ku soo kaajisay goortay kaajisay noloshoo dhan waa sida marka nolosha gabigeedba waa trainingka marka haddii aynu diyaar u nahay inaynu trainingka wax kasta ilbaa ka saaro si uu qof u noqdo oo weliba adiga mooyaane aanu cid kala haysanin adiga iyo islaanta guriga jooga mooyaane aanu cid kala haysanin bal cidda kale ay ka soo fikrad iyo aragti gadisan tahay haddaynu trainingka nolosha ku wadaynana ilmahan waynu tababari karaynaa waa ka saari karaynaa waa wadi karaynaa waxaynu u baahannahay ilmaheena inaynu barro diintiisa inuu ku faano inaynu barro diinta inuu dadka ugu yeedho inaynu barro mas-uuliyaadka inuu qaado inaynu barro ilmuhu markuu 15 jir gaadho waa mas-uul amaama allahi subxaanahu watacaala inaynaan odhan teenager baa tahay oo weli caqliga ma lihid ama surwaalkaa lagu soo iibinaya sax ma aha 15 gaadhay ama inaan 16 gaadhay maxaa surwaal loogu iibinaya haddaad wax siinayso gee waxay idhaahdaan teenagerka markuu soo gaadho iyagu waxay idhahdaan 3 shay buu u baahan yahay kow waxa haystaba idhahdaan identity crisis
isagu wuxuu haystaa dadkii yaraa inuu ka baxay oo dee waa kan ninnimada dareemay ama gabadhnimada ay dareentay oo inaanu yarayn waalidkuna waxay haystaan weli inuu carruurtii ka tirsan yahay yarkii meeya baad leedahay nin 16 jira marka identity crisis isna yaraantii diidii oo ka soo baxa dadkii waaweynaana inuu qof weyn yahay weli may aqbalin wuxuu u baahan yahay koowaad bay markaa yidhahdaan al-ictiraaf in la ictiraafo dee ilaahay baa uu ictiraafay in aakhiro wuxuu sameeyo dhan loo qabanayo adigu maxaad markaa u aqbali weyda haddana waa inaad inuu mas-uul yahay ictiraaftaa ka labaad waxay yidhahdaan wuxuu u baahan yahay al-istiqlaaliya inuu qof yahay oo gaarkiisa isu taagi karo in la dareensiiyo oo uu isku fillaan karo ka saddexaadna waxay yidhahdaan waa inuu dareemo al-mas-uuliya inuu qof mas-uuliyad qaadi karayay innagu waxaynu rabnaa intaad suuqa iska tagto ood shaadhi surwaal la soo booddo inaad keento oo tidhaahdo labadaasaan kuu soo iibiyey xidho aabbo isna ku idhaa makuwa kane markadiiba male waa laba xidho waxay ahayd intaad kaxayso inaad geyso meesha wax lagu iibiyo isagu uu doorto adna aad sharaxdo haddaad wax dhaanto inaad tidhaa aabba kan iska daawo waa qaawismaya kani markaad biyaa gelisaa buu kaa fasaqayaa kani ma fiicno oo waqti badan ku hayn maayo inaad qofkan tawjiihiso qancin kartid al-iqnaac wixii aad la rabtay waa inaad ku qancin kartaa laakiin inaad ku qasabto maaha isna haddaad qanciso uu soo qaato wuxuu arkaya maro isagu doortay inay tahay oo ku qancay waad qancisay waxay yidhahdaan nooc min almas-uuliya in la dareensiiyo inantu waa in loo tababaraa inay inan noqon karto reer maamulan karto saa daraaddeed hooyadu waa inay shaqada guriga ka qayb gelisaa inanku nin reer yeelan kara inuu noqdo yani mas-uuliyadda waa in loo tiriyo mujtamaca inuu mas-uul ka noqon karo bulshada inuu wax ka noqon karo waxaan leenahay marka maaha inaynu carruurta kabti iyo cidhidhi iyo waxba garan maysa iyo dad mateed iyo caqli meelahid iyo canaan iyo xoog ku hayno maaha haddaba anigu darsiga ku saabsaysan carruurta see loo tarbeeya iguma weyna waayo reer aan wax garanayn un inaan idhaahdo carruur rabeeyo kan yeela dee ma soconayso anigu waxaan leeyahay war waalidka aan rabayno marka koowaad waalidow adigu gal dugsiga adigu qur-aanka hormood ku noqo adigu qur-aanka dhigo adigu salaada dhigo adigu diinta baro adigu asaasiyaadkii diinta baro ilmahagu markuu arko inaad aadba dadaalayso wax fiican buu arkaya isna waa kula dadaalaya laakiin markaad adigu diinba doonaynin isagana aad xabsi ka dhigto intaad geliso aad halkaa u shaaha tagto maxaad qabataan markaa carruurta malcamada keentaan dad banaanka fadhiisato abaad halkaa ka sheekaynaysaa maanta oo dhan waar ma dhammaaday malcamadii talobaad le adna qur-aanka ma akhriyi taqaanid keebaa saxsan markaa adigii weynaana inaad ilaahay kitaabkiisa akhriyi weydo midh yarna inaad qasbayso inuu qur-aanka akhriyo waxay ahayd inaad adigu qur-aankaaga saxatid ceeb maaha nebi maxamed malcaamad ma fureen rag waaweyn buu diinta u dhigayay abibakara iyo aabihii iyo kuu dhalay ayaa wax wada dhiganayay abiqaxaafoo tin madoobiba aanu kuii oolin madaxiisa au nebigu leeya war bal madaxa wax ka mariya iyo abibakar iyo inankuu dhalay ayaa wax wada dhiganaya waa 3 nin oo is dhalay nebi maxamed wax ka wada dhigaysanaya calayhi salaatu wasalaam war cilmigu ceeb ma leh diintuna waan yaraya waan weyn inaga caqligeena waxa gashay diinta carruurta loo dhigaa kaana ninku ka weynaaday ama gabadhu ay ka weynaato qofka hadduu weynaado ama uu dhalinyaro noqdo aanu isagu joogin aanu malcaamad baa dhigan karaa buu ku leeyahay yani carruurtaa dhigatay weeyaan marka darsigaygu waqtigii waa iska dhammaaday waxaan kusoo koobayaa carruur rabayn kari mayno haddaynan inagu israbaynin haddaynan inagu farsamada baranin haddaynan inagu diinta baranin u taag heli kari mayno waayo bulsho inaga xarfaansan oo kaa khabiirsan ilmuhu inuu farxo markuu baanhaagaha tago meeshaan carruurta kindergaandarka lagu hayo guriga markuu tagana waa cadhoodo bal ka war ilmo miyaad aragtay lagu maslaxayo hooya maanta iska joogo isagoo xanuunsanaya may waxaan qabanayaa way xaggu ku farxad badan yihin guriga xabsi u haystaa inuu meeshaa qabto maxaa isagoo bukaba u arkaa yani ilmihii waa la hantay qalbigiisii iyo caqligiisiiba farsamo yaqaan baa jooga meesha tan qof loo tababaray baa jooga inuu ilmaha kan maankiisa iyo caqligiisa hayn karo qof baa jooga wax kastoo guriga ilmaha yaraad dhashay waa basaas yaroo kula jooga
habartaasi way ka warrasiin kartaa wax kastoo gurigaa way weydiin kartaa sidii qalbigiisa u hanatayna wuu u sheegaya involuntarily isagoo abu warramaya xalay odaygaa qaylqaylinayay iyo saaka islaantu dharbaaxay maalin walba waa la ogyahay gurigaaga wax kastoo ka dhaca waa la ogyahay kuwa yararaad dhashun baana la weydiinaya cid kaloo ku basaastay ma jirto waayo dad xirfadan yaqaan baa jooga meesha tan oo ilmaha ka warrasiinaya xalayto filimkii hebel ma daawateen caynkan ma samayseen waxaasaa soo baxay maanta maad soo aragteen ma aniga hooyaa igu tiri seexo oo fiidkiiba waa lay tumay ayuu leeyahay ma waxbay kugu dhufa marka waa laga soo ridaya waxa kan marka aan warkayga waxaan ku soo koobayaa war haddaynu rabno ilmahan inaynu dadka kala soo hadhno innagoo aan wax baranno wasala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin